بسم الله الحمد لله. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ee meeshaan isugu timid dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan qaybahooda kala duwan ee meeshaan isugu timid mansab kasta iyo magac kasta ha ku fadhiya meeshaan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib waxaan marka hore u mahad celinayaa madashan aada u quruxda badan ee sharafta badan munaasabadan ciddii soo abaabushay ciddii fikirkeeda lahayd iyo gogoshan fiican cidda bixisay iyo ku yaboohday waxaan u celinayaa mahad ballaaran. ilaahay baa mahadda iska leh. waxaan leeyahay waqti fiican ayaad keenteen dadka lagu casumay oo nooc walba ah iyaguna waxaan leeyahay fikirkiina saliimka waa looga baahan yahay meeshan inaad ku soo biirisaan. aniga waxaan ku hadlayaa magaca odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed yaan ku hadlayaa anigoo ku hadlaya magacooda. waxaan rabaa xaajada xaggee ka qorantay awal rag ka mid ah mas-uuliyiinta qaar ah ka dhawaa soo bilaabatay hawshan ma aha mid hadda cusub. waxa marka hore hadday qaldamaanna inay iyadu u istaagto sida ragga qaar ay u sheegeen haddeer oo halgankii bilowga uu yahay sida xilligii SYL oo kale taas ayaan ku waafaqsanahay. haddii shalay la qaldamay dee waddadii lagu qaldamay ha laga soo noqdo runtana ha laysu sheego. haddaan run la sheegin wax hagaagaya ma jiraan. nabar kor laga dhayay ee aan si fiican boogtiisa loo daweynin ma daawoobayo. waa in nabarka si fiican loo xoqaa oo dawadana si fiican loogu daweeyaa. in la yidhaahdo 4.5 iyo in la yidhaahdo raggaa iska badsaday iyo in la yidhaahdo yacni wasiiradiibaa haddii la kuureenay yacni qoyskoodii wax ka dhigay waxaasoo dhan waxaa keenaya macnaha wixii hore soo bilowday unbaa weli socda. waxay dhaleen iyo waxay sii dhaleen le weli sii socda ee wax kaloo ma jiraan. insha allah ilaahay ha loo noqdo ilaahayna ha laga baqo. waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed dhegaysanaysa ama ay maqlaysa inaan u sheego xaqa ha loo noqdo. xaqa haddii la helo waxaa la helayaa amni, waxaa la helayaa nabad, cadaalad, wax walba meeshaasay ku jiraan. marka madaxda Soomaaliyeed guud ahaan waxaan leeyahay dib ha loo fikiro. madashanna waxaan leeyahay shaqadeeda ha ugu horraysiiso hana joogtayso hawshan hadda ay bilowday. maxaa yeelay hawshan waxay faa'iido u tahay bulshada Soomaaliyeed. meeshan waxaa ku qoran dood qaran. dood qaran aniga waxaan leeyahay waa daawo qaran. doodda waa daawo. haddii la doodo daawa ka soo baxaysa. marka si loo daawooba doodan ha la xoojiyo waqtigeedana ha la kordhiyo oo waqti badan ha la geliyo si dadka ay daawo u helaan. haddaan daawo la helin dee cudurka waa soconaya waana sii faafaya marka dambe kansaruu noqonaya marka qofkii aakhirka ugu dhimanaya sida yacni cuduradii baasoo laga sheegaya ee dunida oo ayriska ku tilmaameen oo kale. marka dadkii hadda ayriskii waa kusii badanaya Soomaaliya. marka waxaana ayris ku noqday qabiilka. marka si qabiilka looga baxo oo dadka daawo u helo doodan daawaha loo bedelo oo daawo qaran ha noqoto doodanna ha la xoojiyo. waa intaasaan kusoo gabagabaynaya. aad iyo aadna u mahadsantihin. asalaamu calaykum waraxmatullah.